HB-gu waa caabuq nafta halis gelin kara. Hepatitis B-gu waa nooca ugu halista badan cagaarshowriyada ku dhaca beerka wuxuuna keenaa dhimasho asagoo qofka u sababeynaya inuu beerkiisii oo ku sameeyo wax loo yaqaan liver cirrhosis oo ah end stage inuu gaaro marxaladda ugu dambeeyay beerkiina uu shaqo gabo. Sidoo kale wuxuu hepatitis B-gu qofka ku sababi karaa inuu beerka ku dhaco cancer, liver cancer, kama dambeysna qofkii ciladaha iyo dhibaatooyinka badan ee ka imaanaya ayuu u dhimanaya maxaa yeelay beerku waa xubin muhiim u ah jirka bini'aadamka. WHO waxay ku qiyaastay 296 milyan oo qof inay la nool yihiin caabuqa hepatitis B sanadkii 2019. sidoo kale sanadkaas waxaa la sheegay in 1.5 milyan oo qof ay sanad kasta uu ku dhaco cudurkan hepatitis B. sidoo kale waxaa la sheegay sanadkaas 2019 waxaa u dhintay caabuqan hepatitis B dad gaaraya 820,000 oo sababaha ugu badan ee u dhinteen waxay